kulan wacan wanaagsan khaarta wada nagala socota meelba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorana waxaa kamid ah xisada dagaal ee ka taagan deegaanada Boocame ee ka tirsan maamulka Puntland iyo hubburursigii ugu dambeeyay oo halkaasi ka jira ayaan idin soo gudbin doonaa qaramada midoobay oo si weyn uga hor imaatay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hadaba qaramada midoobay maxay ka sheegtay madaxweyne Muuse Biixi maxay tahay sababta looga hor imaaday madaxweynaha ayaan warkeena si toos ah ugu eegaynaa Kenya oo fulisay mid kamid ah heshiisadii ay la gashay dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli laga shaki qabay in Kenya ay ka baxdo heshiisadii hore ay u wada saxiixdeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta Jubbaland oo hareeyay khilaaf xooggan madaxweyne ku-xigeenada oo soo kala saaray amarro kala duwan isla markaana ku kala duwan yihiin magacaabistii golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli madaxweynaha Jubbaland jaan iyo cirib meel u dhigayba la laayahay maalmihii ugu dambeeyay ayaa laga dayrinayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo xaaladiisa caafimaad iyadoo la sheegay in dalka dibadiisa loo qaaday isbitaallo ku yaala safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dalka uu baxayo iyo joodka uu baxayay inta safar ee uu baxay intan iyo intii la doortay ee xilka madaxweynenimo uu ku guuleystay ayaan sidoo kale warkeena ku ogeynaa waxaa sidoo kale iyadana khilaaf xoogan uu ka taagan yahay magacaabista golaha wasiirada iyadoo magaalada Muqdisho saamilada siyaasadeed ay ku yeelanayaan kulamo goosgoos oo la doonayo in looga hor imaado magacaabista golaha wasiirada ama ansixinta golaha wasiirada mid aan dhaane qodobadaasi oo kala faahfaahanayaan warkeena ku eegaynaa balse waxa si qadarin iyo xushmad leedin ka codsanayna hadii uu ku soo gaaro muuqaalka like saro aragtidaada nagu reeb qaybta commentiga nagu soo biro naga mid noqo waana idka mahad celinayna la joogitaankiina aan ku bilownay dagaaladii ka socday magaalada Boocame oo ka tirsan maamulka Puntland iyadoo shalayto la sheegay in ciidamada Somaliland ay soo weerareen magaaladaasi ayna gacanta ku dhigeen warar kala duwan ayaana ka soo baxaya iyadoo hubburursiga ugu dambeeyay iyo diyaar garowga ugu dambeeyayna ay wadaan maamulka Puntland oo ay doonayaan inay dagaal ku qaadaan ciidamada halkaasi ku sugan ee ka soo jeeda maamulka Somaliland qodobadaasi waxa ila faahfaahinaya oo studio ay ugu sugan saaxiibka daacad oo isha ku ay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya daacad soo waan dhawaay saaxiib waxa ugu dambeeyay deegaanka Boocame iyo dagaalkii iyo xisadii dagaal ee halkaasi ka taagneed sidaad og tahayba shalay subaxii hore ciidamo ka socday Somaliland uu hogaaminayo gudoomiyaha guud ee gobolka Sool waxay soo gaadheen deegaanka Boocame oo 71 kilomitir oo kaliya u jirta magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland shalay casradii ilaa xalayna waxa laga dareemayay magaalada Garowe iyo nawaaxigeeda ilaa aagan Boocame absi aad u xoogan oo soo wajahday shacabka iyo maamulka Puntland waxaana jira hubburursi xoogan oo ay sameynayaan labada dhinaca Somaliland waxay sheegeen in ay la wareegeen xuduudii ugu dambeysay ee ay la lahaayeen koonfurta Soomaaliya oo iyaguba ay sheegeen in ay ka baxeen Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadii 1991 burburkii ku yimid dawladda federaalka Soomaaliya dhulkan wuxuu ahaa dhul uu muran xoogan ka taagan yahay labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ay inta badan kala sheegtaan Somaliland waxay ku doodaysaa in dhulkii Ingiriiska uu gumeystay ee Somaliland la isku oran jiray iyagu ka tirsan yahay gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayna oo muddo dheer uu ka soo jiray khilaaf xooganna ay iyaga leeyihiin qabsashadoodii shalay ahaagaasi waxa hadlay gudoomiyaha guud ee gobolka Sool waxa uu sheegay in aysan u soconin gudoomiyaha guud ee ka matala waxaan ognahay gobolka Sool inuu leeyahay laba maamul oo dhinaca Puntland iyo dhinaca Somaliland ba ka dhisan gudoomiyaha guud ee gobolka Sool ee Somaliland ayaa ka hadlay deegaanka Boocame waxa uu sheegay in ciidamadooda iyo saraakiisha kala duwan ee hay'adaha amniga Somaliland ay halkaasi soo gaadheen ayna sugahayaan nabadda shacabkana waxay ugu baaqeen in ay isdejiyaan xaaladuna ay caadi tahay dhinaca Puntland wasiirka duulista iyo hawada soo saaray hadal wuxuuna sheegay in dhulkan uu ka tirsan yahay Puntland Somaliland ay dagaal qaawan ku soo qaaday oo aan loo adkeysan doonin dhinaca kale iska caawin doonaan waa isla wararka Boocame ee madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xalay hadlay waxa uu sheegay in maamulka Somaliland oo ku sheegay mid qabiili ah ay ku soo qaadeen duulaan xoogan Puntland loona baahan yahay shacabka Puntland in ay u diyaar garoobaan sidii iskaga celin lahaayeen ama ay iskaga difaaci lahaayeen marka xaaladda Boocame ilaa ay hadda ma degana labada dhinacna waxay sameynayaan diyaar garowga ugu dambeeyay hubburursi iyo in qolada kale ay ku doodo in deegaanka iyadu ka tirsan yahay xaaladda Puntland marka loo noqdo magaaladan waxay u jirtaa 71 kilomitir oo kaliya caasimadda Puntland ee maamulkaasi looga taliyo waxayna ku tahay khatar amni oo aad u xoogan sida ay sheegeen laamaha ammaanka iyo dawladda Puntland xiriidho kala duwan oo aan la sameynayna waxay sheegeen inaysan u dulqaadan doonin in Somaliland aagaasi ay gacanta ku hayso waa hagaag dhinaca kale qaramada midoobay ayaa la sheegay in dignina ka soo saareen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi maxay tahay sababta looga hor imaaday qaramada midoobay warka inta la gaarsiiyay war uga soo saareen sidaad og tahay Somaliland 30 sano u dambeysay waxay ahayd bogcad nabadeed
oo xasiloon dimuqraadi ah si siman oo lays ogol yahayna lagula kala wareega kuraasta intaas wixii ka dambeeyay maanshihii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay yimaaday khilaafyo iska hor imaadiyo caburin cagajugleyn iyo caqabadaha fara badan oo loo geysanaya shacabka iyo xubnaha mucaaradka ah sidoo kale xilli doorashadii Soomaaliland ay ka dhiman tahay muddo yar oo aad u kooban oo la rajaynayo inay qabsoonto 13 November madaxweynuhu waa uu diiday wuxuuna rajaynayaa inuu ku darsado waqti dheeri ah oo muddo kororsi ah sidaa darteed khilaafka u dhaxeeya mucaaradka iyo maxaafidka waxay ku baaqeen mucaaradku inay qaban doonaan mudaharaadyo xoog-xoogan oo ay ka qaban doonaan deegaanada Soomaaliland sidoo kale waxaa jiray baaqaqyo kala duwan oo ay soo saarayeen bulshada deegaanadaas haddaba qaramada midoobay waaxda u qaabilsan arrimaha nabadgelyada oo ka hadashay xaaladda Soomaaliland waxay sheegeen in ciidamadii xafiisyadooda joogay iyo shaqaalahooduba ay amni darro yihiin xaaladda magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland xilligan aan la isku haleyn karin nabadgelyaduna ay khatar ku jirto dhinaca dawladda Finland bayaan ay soo saartay ergeyga gaarka ee u qaabilsan geeska Afrika waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay isku imaato miiska wada hadalka lana dejiyo xaaladda qorshahan hadda socda ee xukuumadda ay wadana dib loo soo celiyo dadka Soomaaliland loo baahan yahay maanta intay qor isu qaadan lahaayeen in ay wada hadal iyo is-afgarad wax walba ku dhameeyaan wagaag dhinaca xisbiyada mucaaradka Soomaaliland maxay ka soo saareen dagaalkan hadda cusub ee ka soo cusboonaaday Soomaaliland iyo Puntland ilaa iyo hadda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kama aysan hadlin dagaalkan iyo boocama qabsashadeeda iyo xukuumadda Soomaaliland isfidinta ay samaysay laakiin waxay ku mashquulsan yihiin in maalinta berri oo sabti ay qaban doonaan mudaharaadyo aad u xoog-xoogan oo lagaga soo horjeeda xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa iyo haddana ma jira wax go'aan oo ay ka soo saareen arrintaas waxaa la sheegayaa Kenya inay fulisay qodobkii ugu dambeeyay ama qodobkii ugu horeeyay aan dhahnay oo ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen dawladda federaalka iyo Kenya muxuu yahay qodobka lagu heshiiyay ee hadda Kenya iyadu ugu horeeyay ee ay fuliso sidaad ogtahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yimid magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya isagoo oo heshiisyo la galay dhigiisa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta oo waqtigiisi uu ku eg yahay 9ka bisha August ee sanadkan aan ku jirro oo ay ka dhiman tahay muddo ku dhan 3 maalmood haddaba Kenya iyo Soomaaliya waxay galeen 12 qodob xilli ay ku heshiiyeen magaalada Nairobi qodobadaasi waxaa ka mid ahaa siideynta qaadka iyo ufasixidiisa in Soomaaliya loo dhoofgeeyo dawladda Kenya arrintaasi way fulisay dawladda Soomaaliya arrintaasi way fulisay Kenya qaadkeedina hadda si toos ayuu uga dagaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda dibadda iyo xafiiska madaxweynaha warqad ka soo baxday oo la geeyay airportka guud ee magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa lagu sheegay in la fasaxay wixii hadda ka dambeeya in diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya baasaboorka diblomaasiga ah iyo midka shaqaalaha rayidka ah ay kaga soo degi karaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wax fiisa aan ay u baahnayn fiisadan ay ka qaadan doonaan gudaha garoonka taasoo ah in qodob aad u weyn oo Soomaalidu aad u filaysay laakiin wali waxaan la fasaxin shacabka caadiga ah booqashooyinka ay ku iman karaan magaalada Nairobi oo ah inay wali sugaan ilaa dhowr iyo 10 bari inay helaan fiisada sidoo kale go'aankan maanta la fuliyay hay'adaha ammaanka ee Kenya waxa lagu wargeliyay inay tixgelin gaar ah siiyaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintooda iyo shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka qaataan fiisaha garoonka gudaha magaalada Muqdisho magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wagaag dhinaca kale maamulka Jubbaland waxaa hareeyay leeyahay khilaaf xoogan oo ka dhashay magacaabistii golaha wasiirada ee federaalka labada madaxweyne ku xigeen ayaa soo kala saaray laba warqadood oo kala duwan taasi oo midka kale oo ku burinayo bal maxay tahay khilaafkan xoogan ee taagan awayse madaxweynihii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam xagee ka dhacay sidaad ogtahay tan iyo xilligii la magacaabay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wax maqal iyo muuqa midna lagama haynin madaxweynihii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam wararka hordhaceen helinana waxay sheegayaan in xaalad caafimaad loogu sii qaaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta kadibna loo sii gudbiyay dalka Jarmalka oo hadda uu ku sugan yahay laguna dabiibahay xaaladiisa caafimaad inkastoo arrintiisa aad looga dayrinhayo dhinaca kale labada madaxweyne ku xigeen maamul goboleedka Jubbaland yaa waxay soo saareen shalay iyo saakaba laba waraaqdo ama dekreetooyin oo iska hor imaanayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid wuxuu sheegay in uu ka soo horjeedo golaha cusub ee wasiirada uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib markay wada hadleen isaga iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug oo isku beel iyo hayb ay ka soo jeedaan labada madaxweyne ku xigeen Galmudug iyo Jubbaland waxay sheegeen in beesha sade saamiga ay ku lahayd baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha wasiiradaba in laga qadiyay ra'iisul wasaare Xamsana uu sameeyay falka dhana beeshaasi iyo saami qaybsigii beesha ay ku lahayd dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in xukuumaddaas aysan bataatan taageeri doonin dhinaca kale wuxuu sheegay Maxamuud Sayid in ay la hadleen labada gole baarlamaan
beeshaasi ku matala dowladda federaalk Soomaaliya waxayna u muuqataa khilaaf ka kacay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk Soomaaliya oo la siiyay maamulka Puntland dhinaca kale saaka war qoraal oo ka soo baxay laguna faafiyay telefishinka Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland wuxuu sheegay in ay gar iyo gardarraba taageersan yihiin oo ay garab taagan yihiin xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre go'aanka ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka koobaadna uu mid waxba kama jiranaya go'aanadan ayaa ku soo aadahaya xilli madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo aan lahaynin jaana iyo cidib meel u dhigay lana sheegayo in dalka dibadiisa lagu dabiibayo gaar ahaan dalka Jarmalka xaaladiisa caafimaadna ilaa iyo hadda warbixin rasmi aan laga haynin maamulkaasina uusan ka hadlin waagaag tan iyo intii ra'iisul wasaare Xamse la doortay waxa isa soo tareeyay khilaafka u dhaxeeya sida warbaahinta qaarkood ay sheegayeen madaxweyne ku-xigeenka koobaad iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam muxuu ka soo bilowday khilaafkan markii hore kolley khilaafyada inta badan Jubbaland sanadihii u dambeeyay marka laga soo tagay khilaaf ku dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya aad buu u koobnaa ama u yaraa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo hadda wadanka ka maqan iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay ahaayeen laba qof oo saaxiib ah muddo soo wada shaqeynayay intaas wixii ka dambeeyay markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu meesha ka baxay xukuumad cusub oo uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuudna imaatay waxaa imaaday isqa qabsi ismaandhaaf iyo aragtiyo kala duwan oo ku aadan gobolka Gada la xiriirka dowladda federaalk Soomaaliya ee Jubbaland la yeelanayso la tacaamulka ra'iisul wasaaraha cusub qaabka tashiga uu ku lahaa Axmed Madoobe iyo xaalado kale oo arrimahaasi ku aadan haddaba taasi waxay sababtay in madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid uu si weyn uga hor yimaado hanaanka maamul iyo qaabka loola dhaqmayo maamulka Galmudug oo iyagu maamulka Gado oo iyagu sheegay in ay bataatanba ka baxeen Jubbaland inta uu joogo Axmed Madoobe marka xaalado fara badan oo iska horimaad iyo isjiid iyo khilaafyo iyo ismaandhaafyo ayaa ka taagan Jubbaland lamana garan karo waxa uu ku dambeyn doono وهاجاك dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu safarkiisa sideedaad uu ka baxayo dalka dibadiisa uu baxayo bal wadanka uu safarka ku aadayo waa xagee ujeedka safarkiisa muxuu yahay goormaas la shaaciyay in uu bixi doono madaxweynaha oo wadanka uu ka bixi doono sidaan ka soo xiganay ila wareediyo ka agdhow fil Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u bixi doonaa dalka Uganda sida la sheegay inkastoo aan la cayimin maalinta iyo waqtiga uu bixi doono balse lagu soo koobay kadib ansixinta golaha wasiirada in uu bixi doono madaxweynuhu waxaa la sheegay in safarkani uu yahay safar rasmi ah ama booqasho rasmi ah kadib markii madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni uu ka helay casuumaad rasmi ah halkaan uu ku tagi doono booqasho rasmi oo 3 maalmood labada madaxweyne ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dawladood ee Uganda iyo Soomaaliya dhinaca kale ay ka wada hadli doonaan ciidamo aad u tiro badan oo ka soo jeeda dalka Uganda oo ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaas oo kamid ah ciidamada ATMIS ee nabadgelyada u jooga ahaana kuwii ugu horeeyay ee gudaha Soomaaliya imaado sidaad ogtahay Uganda waa saaxiibka rasmiga ah inta la og yahay wadamada geeska Afrika ee Soomaaliya waana wadan inta badan maal iyo muruq iyo maskaxba ku bixiyay sidii Soomaaliya dib ugu soo kaban lahayd inkasta oo madaxweynihii xilka ka degay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda Uganda xiriirkoodu uusan fiicnayn xumayna oo iska ahaa 50-50 iska ahaa laakiin hadda madaxweynuhu halkaas ayuu u socdaa waxaana la sheegayaa in arrimo badan ay ka wada hadli doonaan Yoweri Kaguta Museveni uu asagu booqashada rasmiga casuumaadeeda uu soo fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse uu bixi doono kadib magac markii la ansixiyo golaha wasiirada waxaad sheegtay in madaxweynuhu uu sugahayo ansixinta golaha wasiiradana khilaaf ayaa ka taagan oo magaalada Muqdisho 24 saac ugu dambeeyay waxay ka dhamaan laadahay kulamo goosgoosa oo saamileyda siyaasadeed ay kula yeelanayaan gudaha magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale la sheegayaa baarlamaanka golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka in iyaga naftirkoodu 48 saac ugu dambeeyay ay kulamo yeelanayeen taasi oo maaragtay labada dhinacba la iskala shukansanayo qaybna ay doonayso in ansixinta sida ay u dhici lahayd ay maaragtay xoog ka saarayaan qaybta inta badanna ay diidan yihiin oo ka hor imaadeen arrintaasi bal magaalada Muqdisho iyo filitaanka laga filayo ansixinta golaha wasiiradu waa sidee warar goosgoos oo hordhac oo helayna sida ay sheegayaan berri oo sabti ah waxaa fadhiisan doona golaha shacabka waxayna ansixin doonaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya balse magaalada Muqdisho saacadihii u dambeeyay waxay ku jirtay isxulufaysi is-aruursi iyo kulamo goosgoos oo ay yeelanayeen siyaasiyiinta saamileyda ururada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo safaaradaha taasoo la doonayo ama lagu suxulduubayo sidii loo ansixin lahaa golaha wasiirada federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya inuu jiro khilaaf aad u xoogan oo hareeyay golaha xildhibaanada dhexdooda gaar ahaan gudoomiyaha guud ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa oo sidaad ogtahayba wasiirkii iska casilay wasiir ku-xigeenka qorsheynta
in uu ahaa xoghayaha labeel ama lasaamina uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guud ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe sacdiya yaasiin samatar marka waxaa la sheegayaa in maamulka koonfur galbeed oo kale xildhibaanadeedii inta badna ay u yeedhay inkastoo mukhtaar roobow uu isku dayahayo sidii uu u heli lahaa taageero badan dhinaca kale maamulada galmudug iyo puntland waxaa ka soo baxaya baaqo kala duwan inkastoo xalay shir lagu qabtay magaalada garowe lagu taageeray wasiirka cusub ee arrimaha dibadda haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo soo baxaya in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uusan bataatanba soo dhoweynaynin golaha cusub ee wasiirada ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dhinaca kale beelaha banaadiriga iyo shacabka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadirba iyo laftigooda waxay ku jiraan suxulduub dhinaca maamulka hiirshabeelle iyo galmudug laftigooda waxay ku jiraan ismaandhaafiyo iyo isdiidooyin fara badan laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku jiraa dadaalkii ugu dambeeyey wuxuuna wasiir kasta ku amray in beesha uu ka soo jeedo xildhibaankeeda laga soo doorto in uu ku qanciya sidii ay u dooran lahaayeen ama ay u soo saari lahaayeen ama ay ugu guulaysan lahaayeen in golahan la ansixiyo iyadoon wax dhibaata ama caqabada aysan ka imaanin marka magaalada muqdisho 48 saac u dambeysay waxay ku jirtaa xaalad kulamo degdega iyo kulamo goosgoosa iyo kuwa khaasa oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka ka soo horjeeda dhinaca kale waxaa jira shaki aad u xoogan oo tibaaxa hayo in ay xukuumaddan qaybo ka mida ay heli doonaan kalsoonida meesha qaar kale la sheegahayo inaysan heli doonin kalsoonida golaha shacabka waxaa kale oo soo baxahayo xoga sheegahayo in baarlamaanka laftigooda ay ka tashanayaan in ay u ansixiyaan xukuumaddanba shakhsi oo sidii hore ee duuduubka loogu wada ansixin jiray ay ka hor yimaadaan maadaama ay doonayaan inay shakhsiyaad ka mida diidaan inay ansixiyaan aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo ila falanqaynaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya daawadeel idinkana waad mahadsantihiin wararka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaana allah